Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Ali Khayre iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta si wadajir ah xariga uga jaray Cali Riiga oo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ka hirgelisay duleedka magaalada Baydhabo. Booqashadii xarig jarka oo ku tagay Cali ayaa ku helinayay xubno wasiiraha oo ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Wuxuu booqashooyin ku sameeyay Cali iyo qaabka uu u shaqeeyo iyo waxa sidoo kale meesha ku sugnaa qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona munaasabadda xarig jarka qayb ay ka hayeen mas'uuliyiinta wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, wasiirka wasaaradda tamarta Imaan Cali Cabdi iyo wasiir ku-xigeenka iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda iyo shaqaalaha wasaaradda. Ra'iisul Wasaaraha markii uu soo ilaaday booqashada iyo xarig jarka uu ku sameeyay Cali Riiga ayaa waxa warfidiyeenka la hadlay wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Imaan Cali Cabdi wuxuuna mahadcelin ballaaran u soo jeeday Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya booqashiisa ku jooga Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo xarig jarka uu sameeyay Cali cusub oo deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ay ka faa'iideysan doonaan gaar ahaan magaalada Baydhabo shacabka ku dhaqan. Ra'iisul Wasaaraha Federaalka iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cali yaala magaalada Urshameyle Rabaha eelkaas oo isku kaashadeen hay'adda Save the Children iyo Employment CHF wasaaradda monitoring ayana kala haytay eelkaas ujeedada qodoy waxay tahay baahida biyo laanta ku jirta oo magaalada Baydhabo lagu baa eelkaas way leenka targalay afartan kun goos in isu waraabi magaalada goosha degan labaatan door afartan door kaamo goote dadka ka noolna afartan door kun eelkaas eeda biin lay alxamdulillah way baaydan ka faraxsana in geeka activity oo qabatay wasaaradda iyo hay'ado oo iskaashadaan inay furitaanka geekan ay kula qeyb galaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyada aan ka faraxsana insha Allah magaaladan waqti badan biilaan ku awaadi magaalada biileen hali way xaqiijiyay in eelal badan la qoday la qoday ilaa 5 eel 4 eel oo aan go'aan 24 saac shaqeeya 46 shaqeeya la qoday insha Allah way barajiyaan Baydhabo awaadka iyo biilaanta leenku la ku awaada in la ku baahi biina leen hali eelkaasna way baaha LBN law way qoday Save the Children qodi iyo wayna isku kaashaday wasaaradda Koonfur Galbeed tamarta iyo kheyraadka biyo tigi ujeedkaas way taa in maalin kasta biyo la dhaamiyo baraaga baawar la kareeway ba ku doorbidnay in dadka lan wali ka meelis biyo ka hala baab leena liin hariri ilaa 4 kayos oo kala leesubi 4 meelood la jii 4taas meeloodna dadkaas ku waraabe eel kala oo jar isuun hadda la qodi oo biyeed ingle kaas way balin ka targalay meelaha liin astay inii hootig la diji baabkii la qaadan hootaas la jiyay taangishin meelaha la jiyay Cabdullaahi Maxamed Abdul Afaan telefishinka caalamiga ee Real TV magaalada Baydhabo.